السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ضمان أمة المسلمين ميلك سيجوكتو رمضان كريم درسينا maanta wuxuu ku saabsan yahay qaabka aad u samayn lahayd user account haddii aad computer haysato oo lagula isticmaalo waxaad u baahan tahay qayb aad adigu wax kaga shubato aan cidna ka arag cidna aan ka furi karin oo la samayso password aadna way u fududahay daawasho wanaagsan marka ugu horeysa waxaad soo furaysaa qaybta yar ee searching ama searching buttonkaas ayaa soo furaysaa kadibna waxaad ku qoraysaa control panel ama sida caadiga ah xagga sare desktop-ka aad control panel-ka ka furaysaa kadib markuu control panel ku soo baxo waxaad ka doorataa qaybtan halkan ku qorantay user account marka wuxuu ku soo dhigay qaabkan waxaad ka doorataa ama aad ku dhufataa halka ay ku qoran tahay manage an other account kadib wuxuu ku tusayaa inta user ee lagu isticmaalay ama lagu isticmaalo computer-kan kadib waxaad ka sii doorataa si aad ugu darto mid kale add new user in this PC kadib wuxuu inoo soo saarayaa halkii aynu kaga samayn lahayn kadib waxaad ka doorataa add someone else kadib boxkan yar ayaa ku soo baxaya waqti yar ayuu wareegayaa kadib saddexdan khaanadood ee yaryar waxaynu ku kala qornaa username-kii iyo password-kii laba iyo hintii password kadibna waxaynu gelinaynaa username password-kana kadibna intaa markaad bixiso next ka dooro kadib imika wuu inoo dhimay sida ujeeda halkan hoose waxaa ka muuqda username-kii imika aynu gelinaynay maxamed sigis halkan haddii aan ku dhufto imika username-keena waan idhaahdo change account waxaad arkaysaa inuu halkan starter-ku ahaa aynu ka dhigi karno imika administrator aynu ka dhigi karno kadib haddii aad doonayso administrator baad ka dhigi kartaa kadib markaad ku dhufato okay ayaad odhanaysaa markaa qaabkan ayaa loo sameeyaa aad iyo aadna u fududahay waana simple markaa cashirkeena intaan idinku koobiyay fadlan haddii aad channelka cusub subscribe leh wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh